magacaygu waa Maxamed Axmed Cabdi Muuse Dawaale haddaan ka warbixiyo cooskan meeshan ku beeran waxaa loo yaqaanaa Bracharia grass waliina wuxuu ka yahay variety ama nooc ka mid ah oo loo yaqaan Mulata 2 lahaa wuxuu asal ahaan ka bixi jiray bariga Afrika laakiin waxaa lagu hormariyay wadamadan Latin America Colombia waxaana hormariyay shirkad loo yaqaana Siat sidoo kale inta wadanka uu la qabsan karaa tijaabada si aan ku ogaanay wadanka uu la qabsan karaa waxa uu suura gelinaya astaamaha wanaagsan ee uu leeyahay cooskani ayaa keenaysa inuu la qabsada wadanka sababtoo ah wuxuu leeyahay cooskani astaantiisa waxa kamid ah astaamaha wanaagsan ee uu leeyahay waxa kamid ah in uu ka bixi kara heerkulka dhulalka ama wadamada heerkulkooda uu sareeyo Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada heerkulkooda uu sareeyo sida darteed uu ka bixi kara sidoo kale wuxuu ka bixi karaa carooyinka kala duwan noocyada kala duwan ee carooyinka haday noqon lahayd carooyinka bacaadka iyo carooyinka kaleeyda ama dhoobeyda ayuu ka bixi karaa low fertile soil iyo high fertile soil sidoo kale sidaad u jeedaan meeshan hadii uu ku beeran yahay 95% waa bacaad kaliya waxaan ku shubnay wax yar oo dhoobey ah ayaan ku shubnay waxaadna u jeedaan sidoo ugu baxay oo sidaan ay ugu baxaya waa bacaad markaas taasi macnaheedu waxay tahay wadanka dhan inuu ka wada bixi kara carooyinkiisa meelaha kala duwan sidoo kale inta astaamaha la mahdi ee uu leeyahay waxa kamid ah geedkani inuu iska caabinaya ama inuu si fiican ugu bixi kara drought resistance inuu yahay inuu u dulqaadan kara abaaraha meelaha biyo yarida ay ka jirto inuu aad ugu bixi karo oo drought resistance uu yahay sidoo kale inta astaamaha wanaagsan ee uu leeyahay waxa kamid ah inuu iska caabin kara cudurrada iyo cayayaanada kala duwan oo ku dhaca calafyada inuusan asiga ku dhicin sababtoo ah wuxuu leeyahay sida u jeedaan xanaf ayuu leeyahay xanaftaasi xoolaha waxba uma dhibta laakiin asiga wuxuu iskaga daafacayaa cayayaanadii soo weerari lahay iyo cudurradii ku dhici lahay ayuu u adkeysanaya ayuu iskaga daafacayaa wanaagsantahay bal waxtarka cooskan u leeyahay xoolaha waxtarka uu leeyahay calafkan xoolaha waa waxtar aad u badan ayuu u leeyahay sababtoo ah cooskani waxa lagu sheegaa proteinkiisa protein contactkiisa inay aad u badan tahay ilaa 19% protein ku dhow ayuu leeyahay that's why uu calafyada kale uu kaga duwan yahay xoolaha inta badan proteinkaasina waxay keenaysaa productionka ama wax soo saarka xoolihii inuu kor u kaco haday noqon lahayd caanihiisi inuu kor u kaco iyo xoolihii inay ku naxaano hilibkiisa uu kor u kaco aad u weyn caano badan iyo hilib badan ayaa laga helayaa hadaa la siiyo xoolaha cimilada uu ku bixi karo qabow ama kuleel ama bal cimilada uu ka bixi karo geedkan inta badan dhulalka oo tropicalka ama kulaylaha ayuu aad ugu baxaa Soomaaliyeena waxaan ognahay temperature-keeda inuu sareeyo sida daraadeed uu ka bixi karaa oo dhulalka kulaylaha ayuu ka baxaa xaddiga biyaha uu baahan yahay inta badan waxa lagu sheegaa cooskani inuu kamid yahay dalagyada aadka ugu dulqaato biyo yarida u adkaysto oo low biyo yar ayuu u baahan yahay sidoo kale wuxuu kamid yahay sidaan ognahay caradeena iyo biyaha aan wax ku waraabsana labadaba waxa la socota salti wax loo yaqaan ama cusbadaasi waxay keenaysaa wax soo saarkii dalagii inay hoos u dhigaan laakiin geedkani asigoo wuxuu astaan u leeyahay inuu u adkeysan karo cusbooyinkaas oo wax soo saarka hoos aynan u dhigaynin taranka oo tarmaayo ama faafayo ayadana maxaa la dhihi karaa aad u weyn baalkan wuxuu leeyahay garab dilaac ama tillaris wax loo yaqaano oo aad ayuu u xadiwan yahay sida u jeedaan hadda anaga labada roob waxa isku jiraan labada gees condensate sidaan ayuu isku dhow yahay condensate oo si fiican ayuu isku dhaxgalay taasi macnaheedu waxa waa productionkiisa ama aad ayuu wax soo saar u leeyahay aad ayuu u faafaa kana marka in cooskan aad keentaan wadanka aad ku beertaan asbaabaha nagu dhaliyay inaan cooskani keeno wadanka waxa kamid ah maadaama aan ognahay wadanka xoolaha waxay ku tiirsanayeen coosas u soo baxa qaab dabiici ah ama si nature ah oo roobabkii di'i jiray coos ay ku tiirsan yihiin roobabkii di'i jiray cooskii qaab dabiici u soo bixi jiray ayaa inta badan xoolaha ku tiirsan yihiin laakiin waxaan ku fikirnay anaga coos badiil u noqon kara wadama markay abaari dhacdo ama roob yari ay dhacdo
coos badiil u noqon kara coosahaas qaab dabiici kusoo bixi jiray oo haddana biyo yari ama biyo aad u yar u dul qaadan kara taas ayaa nagu dhalisay inaan waddanka ka hirgelino ama aan ku beerno xoolaha inta badan waxay u baaba'aan xilliyada jiilaalka iyo abaaro oo keenaysa marna biyo la'aan marna waxid daaqa marka daaqa xoolaha Soomaaliyeed cooskan ma la dhihi karaa xoolahaas tirada badan daaq la'aanta u geeriyoonayo wax buu ku bedeli karaa aad u weyn waa midaan ku rajo weynahay inuu wax badan uu ka bedelo xoolahaas inta badan calaf la'aanta u baaba'aya u dhamaanaya haddii la gaarsiiyo oo uu gaaro oo ama la beero inuu badiil u noqon karo xoolahaas dhiman lahay inay meeshii laga waayo aad u weyn